Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada daawadayaal channelkeena aragtida maanta. Muuqaalkeena maanta waxaan ku sharaxaynaa qaybta saddexaad ee filimka Black Hawk Down oo ah filim laga metelay duulaanka uu Mareykanku ku soo qaaday Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Daawasho wacan. Ciidamadii UN-ka ee soo gurmaday kuwii Mareykanka ayaa intay wadada ku soo jireen waxaa dhexda ku qabsaday dagaal kaasoo hakiyay gurmadkii ay si dhaqso ah ku gaari lahaayeen goobta dagaalku uu ka socday ee bartamaha magaalada Muqdisho. Ciidamada General Aidid oo isticmaalaya RPG ayaa ku dhuftay gaari ka mid ah gawaadhida UN-ka kaasoo waxyeello gaarsiiyay gaarigii iyo ciidankii saarnaaba, waxayna sameeyeen iska caabin si ay socdaalkooda u sii wataan. 7 askari oo maleeshiyaan ah iyo 2 Bakistaani ayaa ku dhaawacmay iska horimaadkaas. Dagaalka dhexda ku qabsaday ciidamada UN-ka ayaa sababay dib u dhac aad u weyn, waxaana si istaba joog oo la soo hadlayay ciidamada Mareykanka ee dagaalka ku jiray iyagoo dhahay waxaan u baahannahay gurmad degdeg ah, waan dhimanaynaa ee nabadbaadiya, goormaadna soo gaaraysaan. waxayna ugu jawaabayeen 40 daqiiqo ama 30 daqiiqo ka bacdi. Ciidamada Mareykanka oo naftu hayso rasaastuna ugu socota si istaba joog ah ayaa aad u dheeraysanaya waqtiga tirada badan ee ay wadada ku soo jiraan ciidamada gurmadka ahi. Ugu dambeyn ciidamada UN-ku waxay soo gaareen goobihii ay ka dagaalamayeen ciidamada Mareykanku, waxayna sidoo kale gaareen goobtii ciidamada Rangerska iyo kuwa Delta Force ay howlgalka ku soo qaadeen ee bartilmaameedka u ahayd, waxayna isku dayeen inay wadada ka wareejiyaan jidgooyooyinka ay dhigeen maleeshiyaadku. waxayna howlgal ballaaran ku sameeyeen xaafadaha dagaalku ka socday iyagoo dilay tiro ka mid ah maleeshiyaadka SNA. sidoo kale iyagana waxaa laga dilay dhowr askari intii ay howlgalka ku jireen. Ciidamada UN-ka ayaa sidoo kale waayay meedadka askar ka mid ah ciidamada Mareykanka, waxaana meedadka qaatay ciidamada SNA iyagoo dhulka ku jiidjiidayay. Ciidamada Mareykanka ayaa sidoo kale qarxiyay oo baabiyay diyaaradii dhulka ku soo dhacday ee Black Hawk Down. Ciidamada UN-ka iyo kuwa Mareykanka oo raadinaya askar ku asqowday dagaalka oo luntay ayaa helay askari meel keligii ku go'doomay. markuu arkay ayuuna ku qayliyay Rangers, wuxuuna yiri waxaan ahay Captain Steel oo ah taliyaha Rangerska. waxaa soo dhawaaday waa barigii. ciidamada ayaana weli baadigoob ugu jiray helitaanka ciidamo kale oo lumay. waqti dheer oo dagaal kadib waxaa la badbaadiyay ciidamada Super 61. waxaa la gaaray 5:45 aroornimo. waxaa bariyay waagi. ciidamada ayaana u soo ruqaasaday dhankaas iyo wadada howlwadaag. ciidamada ayaa lagu ku marayay wadooyinka magaalada Muqdisho iyagoo cagta marinaya cid allaale iyo cidii ay arkaan, waxayna galeen dagaal qaatay 14 saacadood. ugu dambeyn waxay u huleeleen dhanka xerada militariga Pakistan. gawaadhida ayaa siday tiro badan oo dhaawacyo iyo dhimasho ah, balse waxaa jirtay dhibaato weyn oo ah inaysan jirin qolal iyo goobo la dhigo dhaawacyada oo lagu dabiibo. musiibadii dagaalka Muqdisho waxaa ciidamada Mareykanka uga dhimatay 19 askari, 1 maleeshiyaan iyo 1 Bakistaani ah, waxaana ku dhaawacmay 82 askari. waxaa dhulka la soo dhigay oo burburtay 2 diyaaradood oo helikobtar ah. 160 askari oo isugu jira ciidamada Rangerska iyo kuwa gaarka ah ee Delta Force oo loo diray howlgal loo qorsheeyay 30 daqiiqo si ay u soo qabtaan 2 ka mid ah madaxda SNA ayaa wuxuu ku qaatay wax ku dhow 15 saacadood, waxayna u baahdeen inay u soo gurmadaan 3,000 oo ciidamada UN-ka ah oo wata taangiyo hubka culus si ay u badbaadiyaan. qiyaastii inta Soomaali ah ee dagaalka ku dhimatay ayaa waxaa lagu qiyaasaa wax ka badan 300 oo qof oo isugu jira dagaalyahano iyo dad shacab ah, waxaana guusha istiraatiijiyadda ee aan la dheelsan karin lahaa hogaamiyaha SNA General Maxamed Faarax Aidid iyadoo uu adeegsanayay taatikooyin lagu burburinayay diyaaradaha Mareykanka. 2 maalin kadib madaxweynaha Mareykanka Bill Clinton ayaa ku dhawaaqay in la joojiyo howlgalkii ka dhanka ahaa General Aidid ayna u joogi doonaan howlgal nabad ilaalin oo kaliya. wuxuuna sidoo kale sheegay in ciidamada Mareykanku ay ka bixi doonaan wadanka March 1994. sidoo kale xogayaha difaaca Mareykanka Les Asban ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo fashilkii ku dhacay howlgalkii Soomaaliya. waxaa mas'uuliyadda jabkaas dusha loo saaray General Garrison iyadoo laga joojiyay shaqadii ciidamada. 11 maalmood kadib ayaa ciidamadii dhaawacyada halista ah qabay dib loogu celiyay wadanka Mareykanka, iyagoo qaarkood markii dambe u dhintay dhaawacyadii soo gaaray. walaalaha qaaliga ah, muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku egyahay. waa ku mahadsantihiin daawashadiina. fadlan daawade channelka subscribe saaro si ay kuu soo gaaraan filmaanta xiisaha badan ee aan halkan soo gelino. mahadsanid.